بسم الله الرحمن الرحيم أبدا سلام يا دمانتين ميل ولا جوجتان ولكن مبارك حادي وإذا مركله سودو هذا محو غران كرا قفكو inuu isbedel u baahan yahay mise jiraan calaamado uu ku ogaan karayo inuu isbedel u baahan yahay hadii se uu ogaado inuu isbedel u baahan yahay ma jiraan albaabo isbedelka laga galo isbedelku wuxuu kamid yahay mid kamid ah sunanta rabbi subhanahu wa ta'ala oo kan ku dajiyay wax waliba isbedel bay ku socdaan ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ميرياش هذا هديهين يا هديهين ضروري هذا يا هديهين حدقه هذا يا هديهين جالكسي هذا يا هديهين بدي هذا يقول كذا وحول الله سبحانه وتعالى كونكم كمذا قوانين تودجيه وحكمذا isbedelku sidoo kale waa waxa kaliya ee la hubo in uu dhacayo halka baan tiraadid geerida kamid ah geerida laftigeeda isbedelka nolosha qofka dhalasho iyo geeri ay kamid tahay sidoo kale calaamadaha isbedelku uu leeyahay waxa kamid ah lama celin karo laakiin waa wax la horseedi karayo waxa jira laba nooc oo isbedel iyo isbedel in badan dadka kamid ah waxa ku dhaca isbedel laakiin iyagu ismay bedelin halka baan farqiga isweydiinayso farqiga u dhaxeeyo waxa weeye isbedelkan wuxuu ku dhacaa ogaaliye qofku isagu ma doorto beerayaashu inta way isbedelayaan oo way socdaan xidigu inta way isbedelayaan galaxies ku way socdaan nolosha oo dhan baa socota badaha inta way caaridayaan oo way kordhayaan geedu inta midabkooda way isbedelayaan cimiladu way isbedelaysaa sida ay koonku isbedelka ugu socdo sunnada rabbi ay koonku u dajiyay ugu socoto ayaa bani aadamkana sida jirkiisu oo inta maalin gurguuranay maalin dhashay midoo gurguuranay midoo ka caqufay midoo koray aha midoo guursanay isbedelka nolosha ilaa intiisu cirra ka soo baxdo jirkiisu isbedelo buurto maarta dhuubto xaaladaha kala duwan ee nolosha isbedelka qofka ku dhacaya isbedel baa ku dhacaya silamida ayaa in badan kamid qofka hadaan isagu noqon ka horseedaya aan noqon ayaa afkaartiisa iyo dareemadiisa iyo mafaahiimtiisa iyo kulli isbedelka nolosha ay ku soo tuurayso baa ku dhacaya laakiin isagu wuxuu doortay ma aha in badan oo kamid ah marka dadka isma bedelin laakiin isbedelka ku dhaca isbedelkan marka uu qofku isbedelayo waa mid ku salaysan doorasho waa mid ku salaysan wacyi iyo ogaal iyo aqoon waa mid ku salaysan qaraar gaadid waa mid ku salaysan go'aan qofka inuu gaaro uu doonayo noloshiisa inuu bedelo waa mid ku salaysan qorsheyn iyo inuu aqoontii isku bedeli lahaa inuu raadsado isbedelka hore wuxuu niri wuxuu ku yimaadaa si bilaa wacyi iyo ogaal la'aan ayuu ku dhacaa kan dambe wuxuu ku yimaadaa wacyi iyo doorasho idan wacyiga waxa kamid ah su'aalaha qofku inuu isweydiiyo horta isbedel ma u baahantaa isbedel inaad u baahantaa horta maxaad ku ogaanaysaa qofku muxuu ku ogaan karaa horta qofku inuu isbedel u baahan yahay dhowr qodob baa tilmaamaya ta ugu horeysa waxa weeye haddii ay jiraan mashaakil kugu soo noqnoqda noloshaada jawaanib kala duwan buu qof walba leeyahay haddii ay jiraan meelo kamid ah jawaanibtaada nololeed meelaha ay mashaakishaada iyo dhibtaada iyo culeysyadaada nololeed ay kasoo noqnoqdaan waxay ku tilmaamaysaa inaad isbedel u baahan tahay haddii mid dhaqaale tahay haddii mid cilaaqa tahay haddii mid caafimaadkaaga ay tahay iyo mental statekaaga meelaha ay mashaakishaada nololeed kasoo noqnoqdaan haddii ay jiraan waxay ku tilmaamaysaa inaad isbedel u baahan tahay meesha labaad uga baahan tahay waxa weeye ay ku tilmaamaysaa calaamada labaad ku tilmaamaysaa inaad isbedel u baahan tahay noloshaada hadday isku ekaato ruutiiniyaad arooriyahaaga iyo galbahaaga iyo habeenadaada iyo waxyaabaha aad qabanaysa isku ekaadaan oo wax badan oo interesting wax badan oo isbedel oo dhaqaaqa oo gogooyinkaaga aad ka baxayso haddii aanay jirin waxay tilmaamaysaa oo noloshaada stagnant iska tahay ee iska fadhido wax isbedel aanu muuqan noloshaada waxay ku tilmaamaysaa calaamad u tahay inaad isbedel aad u baahan tahay meelaha kale waxyaabaha kale ku tilmaamaya inaad isbedel u baahan tahay waxaa kamid ah haddii aad nolosha aad dareento nooc ma macna la'aan dabcan macnaha nolosheena weyn naqaana laakiin mararka qaarkood qofka isgar waxa ku dhaca iswaaba ku dhaca goolad nololeed buu galaa hadaad aragto inuu moodkaaga isbedelo maalmaha uu interestigaaga lumay maaragtay appetite-kii wax ku akhrin wax baadhid wax waxayn wax qabasho aad iska yara weydo nooc maan iyo jab yar iska yara gasho oo aad isira weydo waxay tilmaamaysaa calaamad weyn u tahay runtii inaad isbedel u baahan tahay calaamadaha kale qofku garan karo inuu isbedel u baahan yahay waxa kamid ah kolka uu qofku marankiisa sago wadadiisii marka uu sago shaqadiisii isaga u taalay shaqa aan ahayn marka uu damco inuu qabto
ama uu ka leexdo wadadii hadday cibaado noqoto hadday noqoto wuxuu ka shaqay jiray shaqadiisa hadday noqoto meelihii uu ka heliyay isaga jamashada iyo passionka iyo xasiloonida iyo deganaanta waxyaabihii uu productive ku dareemayay shaqadaadii wixii adigu aad xasiloonida deganaanta aad ku dareemaysay haddii aad ka leexato oo hawl aan hawshaada aadan hayn aad gasho waxay ku tilmaamaysaa calaamada way ku tilmaamaysaa in isbedel u baahan marka iskugu hareeraysan ay ku yiraahdaan bariyan shaqadaada ahayn baad haysaa dabcan mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaad isbedel aad doonaysa inaad samayso laakiin wixii adigu aad naxariista iyo jacaylka iyo deganaanta iyo xasiloonida aad ku dareemaysay haddii aad weydo oo aad maalmaha stress iyo hawlo kale aad gasho waxay ku tilmaamaysaa calaamad u tahay inaad wadadaadii aad ka leexatay waxaan kusoo gabagabeynaya oo badan yihiin marmarsiyooyinkaagu haddii ay bataan iyaguna waxay ku tilmaamaysaa inaad isbedel aad u baahan tahay marar fara badan baa tilmaamaa mar kasta oo ay bataan marmarsiyooyinkaaga waxaa yaraada isbedelkaada there is no way marmarsiyooyinkaagana u badan karayaan excusekaaga ay u badan karayaan isbedelkaaguna u badan karayaan ma dhici karayso marka marar fara badan waxaa dhacda qofku by the way qofku ogaal in badan uma laha ama heer buu gaadhaa aan ogaal u yeelanba inuu marmarsiyooyin iyo excuse fara badan u sheegayo inta badan waxaa dhacaysa qofku heer wuxuu gaadhaa oo in dadkaad arkaysaa sidii uu dadka ugu sheegayay marmarsiyooyin maxaa hebelo sidanu sameyn weydo waxaan baad samayn karaysa kan baad samayn karaysa uu qofku mar walba iska dhaadhicinaya dadka kale si aan uga yaraato hadalka inuu marmarsiyooyin sheego hawlaan baa jirtay kan baa jiray deetana marka dambe isaga uu beentii dadka u sheegayay uu isagu rumaysto ilaa isagu marka dambe uu aamino deetana ay isaga fadhiid ka dhigto oo ogaal inuu yeesho iska dhaafe dadkii ku hareysna markay ku yidhaahdaan hebelow waxaan qofkana haddaad iska dhigaysan batihid ama qof authentic noqo qof isbedelka waxaan ka samee iyaga markaa xitaa difaac galo oo uu iyagii hujuumo halkii ahayd inuu ka qaato uu isbedelo marka ma dhici karaysa in marmarsiyooyinkaagu bataan isbedelkaaguna u bato haddaad aragto in marmarsiyooyinkaagu bataan macnaheed waxay ka dhigtaa isbedelkaaga yaraanaya idan haddaad aragto adigoo marmarsiyooyinkaagu ay badanayaan beenaha dadkaad u sheegaysa iyo excusekaaga cudurdaarashadaada ay fara badanayso waxaad calaamad ku tahay in aad isbedel u baahata waxaa halkaan ka gelayaa 5 albaab oon ku soo gabagabeynayo oo qofku isbedelku ka geli karayo ka koowaad waxa weeye horaan usoo tilmaanay waa meelaha dhibtaadu ay ka imanayaan meelaha ay ka imanayaan hadday mid dhaqaale noqoto hadday mid caafimaad noqoto hadday mid relationship iyo cilaaqa noqoto hadday mid shaqo noqoto meelaha ay dhibtaadu ka imanayaan meelaha ay mashaakishaadu ka soo noqnoqdaan gaarigaagaba ha ahaado gurigaagaba ha ahaado meelaha ay mashaakishaada ka soo noqonayaan waxaad u baahantay intaad fadhiista inaad qorto waa albaab aad ka geli karayso isbedelka waa albaab aad inta badan sideedaba mashaakisha inagu dhacaysa science waa calaamado wax waliba nolosha marka aantaan ay dhicin calaamado ma tilmaamaan inuu meel gubanay waxaad garanaysaa qiiq baad ku garanaysaa inuu traffic shidkiisa waxaad garanaysaa baabuur sidee u taxayn baad garanaysaa inay wax dhaceen sidaasi lamida inuu roob soo socdo waxaad garanaysaa daruurta isoo gadaamaysa imanaysa nolosha wax waliba science ka horeeyaa jira inaad isbedel u baahan tahay meelaha isbedelka uga baahan tahay mashaakisha kugu soo noqnoqda waxay u yihiin calaamado kuu tilmaamaya inaad isbedel samayso waa meelaha markaad isbedelka aad ka geli karaysa ugu horeeya dabcan waana meelaha ku xanuujinaya isbedelkuna uu ka fudud yahay albaabka labaad isbedelka aad ka geli karaysa waxa weeye waa albaabka yool dhigashada hadda u fiirso maan odhan riyada mana aan odhan albaabka yoolasha ama goalska ma odhan yool dhigasho goal setting baa yiri waayo dadku inta badan waa wada riyoonayaan qof aan wax ku tamininayn wax doonayn ma jiro dadku hankooda ha kala sarreeyo waxay doonayaan ha kala sarreeyo ha kala bataan ha kala weynaadaan laakiin bini aadamka oo dhan way wada riyoonayaan waxyaaba ay hanka ku hayaan baa jira ay doonayaan inay gaadhaan laakiin istaabka saddexaad qofka marka uu gudbo oo uu ahdaaf dhigto ahdaafta waxay u noqonayaan wax soo pull gareeya mara fara badan baa tilmaama noloshu there is a push factor or pull factor labada waxa qofka isbedelka ku keena ee cararsiiya ee hore u dhaqaajiyo waxa weeye waa push factor waa qaybta hore aan ka soo sheekeynay qodobkii koowaad ee ah meelaha mashaakishaadu ka imanaya there push factors maanta haddii caafimaadkaaga lagu yiraahdo sokor baa kugu dhacdo dhiikar baa kugu dhacay cholesterolkaagana waa badan tahay there is no doubt socod iyo gym baad gelaysaa inaad maalmo socoto cuntadii baad iska ilaalinaysaa arrimo badan baad ka fikiraysaa dib baad u qiimeynaysaa noloshaada dhammeed cunto iyo habkaad u dhaqmi jirtay oo macaamili jirtay marka waa push factor
meelaha xanuunadaadu ka imanayaan. There is a pull factor. Tanna waxay ka mid tahay meelaha qofku isagu uu horseedi karayo. Waxaan nidhi isbedel qofna waa ku dhaca, qofna wuu horseedaa. isbedelka isagaa doorta. Goalsku waxay ka mid yihiin albaabada laga galo ee waaweyn laga galo qofku inuu noloshiisa isbedel u sameeyo. Rio kasoo tag, waxaasi waxaas rabaa inaan qabto noqdo kasoo tag, inaad timaado stepka saddexaad oo ah ahdaaf inaad sad garayso, inaad ahdaaf dhigato. ahdaafta la dhigayana maxay ka dhigan tahay? waxay leedahay xilli aad bilaabayso, waxaad taqaanaa waxaad rabto, waxaad taqaanaa sababtaad u rabto, xilligaad bilaabayso, xilligaad dhammaynayso, intaba wixii kaa caawinayay, skills kaa caawinayay, dadkii kaa caawinayay, aqoon bay u baahan tahay. maxaynu tilmaanay isbedelka qofka ku dhaca uu isaga dhacaa si wacyi ogaalay ah. kan kale laakiin wuxuu u baahan yahay qaraar, wuxuu u baahan yahay go'aan, wuxuu u baahan yahay aqoon raasasho. tanaa ka mid ah. haddaadan aqoon xitaa sida ahdaafta loo dhigto, you have to inaad haysid course inaad ka qaadatid, book inaad akhrisid, youtube inaad gashid, mawaadiicda laga hadlayo goal setting inaad qaadatid. isbedelka meelaha isbedelka laga galo, albaabada waaweyn isbedelka laga galo waxaa ka mid ah qofka inuu ahdaaf uu dhigto. albaabada kale uu qofku isbedel ka geli karaya waxaa ka mid ah albaabka waqtiga. alwaqt noloshan oo dhan waa wada waqti. almar'u qofku wax kale ma saarna. ninka carbeed wuxuu lahaa وما المرء إلا راكب ظهر عمره. qofku wax kale maaha, wuxuu saaran yahay dhabarka cumrigiisa. sida uu qofku gaariga marka uu saaran yahay oo rakaabs yahay maylka uu jarayo, ayaa qofku marka uu cumrigiisa uu saaran yahay oo waqtigaagii halkan ka dhigan, habeenka imanaya iyo maalinka imanaya iyo bisha imanaysa cimrigaagii wax kasii jarayaan. adduunyada caawiya maalin way iscibinayaan, cabaarkii yar ee kaa tagaa waa cad kaa go'aan. casrigan gabaabsiga noqdee sii cidhiidhiyoobay, camal falasho waxaan ahayn kagama cilbeeshin. maanta noloshu aan ku jirno waa nolol zaxmad badan, waa nolol hawlo badan, waa nolol dalabaad badan. bini aadamka o dhan kugu hareeraysan iyo cid kastoo kugu hareeraysan waxbay kaa doonayaan. midka ugu wanaagsan mid waliba wuxuu kaa dalbayaa ahdaaf isaga u lahaa inaad qayb ka noqoto, qorshooyin isaga u lahaa inaad qayb ka noqoto. meel baa lagaaga yeedhaya. adigu maxaad doonaysaa? adigu waa maxay isbedelka aad doonaysid? waqtigaaga sidee baad ugu jaangoyn karaysaa isbedelka aad u baahan tahay? wax akhriskaaga, cibaadaadkaaga, ubadkaaga waqtigaad la qaadanayso, noloshaada skillska aad baranayso, lacagta aad seef garaysanayso, wahaakada. isbedelku wax wal oo nolosha subxaanallah, yani waana wax mid ka mid ah waxyaabaha ilaahay subxaanahu wa tacaala si isku wada mida bini aadamka u wada siiyey. everybody oo subax marka uu soo kaco mar baa la tilmaamaa in 86,400 oo ilbiriqsi inuu haysto, bimacnaa 24 saac buu qof haystaa. laakiin waxa lagu kala tegay waxa weeye 24 saacadood sida loo kala beeqaansado, sida maaragtay iyo waxa qofku ku dhex qabanayo iyo waxa uu ku reebto. by the way, hadafka aynu soo tilmaanayna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha qofku waqtiga wax kagala hadho. waqtiga lama celin karayo, laakiin waxbaad ka kaydsan karaysaa. marka waqti wuxuu ka mid yahay meelaha qofku uu albaabada uu ka geli karayo isbedelada waaweyn. bani aadamka waxaad aragtaan cudumo iyo dad waaweyn oo aad wada majeeranaysaan. laa shak mid waliba waqtigiisa wuxuu u adeegsadaa si aanay u adeegsan 99% dadka kale. taas waa ay unique u yihiin, taas waa ay dadka uga duwan yihiin. waayo waxay waqtigooda geliyaan baa ka duwan waxa ay dadka intooda badan ay waqtiga ay geliyaan. albaabada kale aad ka geli karayso isbedelka waxaa ka mid ah albaabka bii'ada, albaabka environmentiga, bii'adaad ku nooshahay. laa shak haddaad u baahan tahay isbedel, bii'adaad ku nooshahay waa in isbedesho. bii'adaad ku nooshahay waa in isbedesho. marar fara badan baan tilmaamaa kamana daalo inaan idhaahdo dadka kugu hareeraysan waxay ka mid yihiin hagaaskaaga, fadhiidnimadaada, waxay sidoo kale ka mid noqon karayaan hore socodkaaga iyo inaad qof isbedelo wax ku taamac noqdo. badiwe markaan ka hadlayo isbedelka maanta sida isbedelka iyo guusha loo ekeysiiye maaha. it's not about diyaaradaha la raacayo, la safrayo, suudadkan la xiran yahay iyo boorsooyinka la sitay iyo waxaan bini aadamku inta badan ay maanta social media kusoo bandhigayaan. isna successka quruxda badan waxa weeye qofka gudihiisa waxa uu ka dareemayo, waa waxa aan shaashada inta badan aan qaban, waa waxa isagu noloshiisa uu iska bedelayo, noloshiisa waxa dadka ku hareeraysan ay ka dheexan karayaan weeyaan. maaha tan la sheegay, maaha tan afka ku saabsan, maaha tan dhaqaaqa iyo socodka inta badan ku salaysan, maaha. marka isbedelka nololeed dadka kugu hareeraysan waxa weeye albaabada kamid ah, mid kamid albaabada waaweyn ee laga galo isbedelka. waayo saaxiibadu waxay sameeyaan waxa aad ku qancayso, waxay qaabeeyaan oo wax qayb weyn ka qaataan sida aad nolosha u arkayso, waxa aad ku qancayso, mafaahiimtaada, aragtiyahaada, tasawuraadkaaga iyo adigu xitaa. by the way, waxaa tilmaamaa inta badan la yidhaahdaa 5 qof ee kugu hareeraysan average-kooda aad noqonaysaa. ma jirto daraasad tilmaamaysa in shan qof tilmaamaysa, ma jirto. laakiin daraasaadka in badan oo kamid ah waxay tilmaamayaan in xitaa dadka kugu hareeraysan ay ka dhalanayso adigu xitaa sida aad isku arkayso.
adigu saad isku arkayso waxa sameeyo waxa weeye waa saaxiibadaada waa inagu adigu saad isku aragtid ma saad isku aragtid waa sida dadka ugu hareeraysan ay ku arkaan sidaas aadna isku sii aragtaa intana marka circle-kaagu ma yahay dad hor socod leh ma yihiin dad potential ka dhex arka ma yihiin dad ku dhiirigelinaya ma yihiin dad hore u socda dadka ku hareeraysan marka environment wuxuu ka mid yahay meelaha qofku hadduu u baahan yahay isbedel u baahan yahay albaabada waaweyn isbedelku ka geli karaya ka mid tahay raadso cid meeshaad u socota potential kaa dhex aragta ku dhiirigelinaysa iyadana hor u socod leh aad isgarab qabsanaysaa raadso meel walbaad ka helaysaa just environmentigaa ka bax akhiiran waxaan kusoo gabagabeynayaa meelaha albaabada waaweyn ee isbedelka laga geli karayo waxa weeye waa ruutiiniyaadka waa caadaad yaryar oo qofku samaysto oo noloshiisa ripple effect ku yeelanaya maanta marka aad bog aad akhriso maalin walba oo 10 daqiiqo maalin baad wax akhriso afkaarta ku imanaysa wacyiga ku kordhaya mafaahiimta cusub aad helaysid noloshaada oo dhan bay ripple effect ku yeelanaya socod hadda maanta aad bilowdo 30 daqiiqo 40 daqiiqo maalinka aad luwayso oo aadan lugta aad inta badan baa jira gawaarida raaca ya oo meelahan dadka noloshooda iska ladantan ka hadlaya hadda maanta aad bilowdo inaad socoto oo aad 30 daqiiqo 40 daqiiqo maalin walba aad socoto waxay ripple effect ku sameynaysaa badii ripple effect waxa yiraahdaa markaad meel biyo fadhiyaan dhagax ku tuurto waxa sameysma goobaabina yaryar oo fara badan marka dambaysa marka goobaabinaas way sii bataan dhagax meesha ku dhacay ayay ka bilaabataa deetana way badataa ripple effect wala yiraahdaa waxa weeye marka 30 daqiiqo 40 daqiiqo maalinka aad bilowdeen aad socotid waxay saameyn ku yeelanaysaa cuntadii aad cunaysid waxay saameyn ku yeelanaysaa caafimaadkaaga healthigaaga iyo caafimaadkaaga inaad si kala u aragto macaankii baa laga yaabaa inaad iska yareyso maalin waxa laga yaabaa inaad cabirto yani life jirkaagii baa qurxoonaanaya waxa isbedelaya hurdadaadii baa isbedelaysaa yani waa ripple effect waxyaabaha sameeya marka caadaad yaryar waxaa jira qofku haddii uu sameeyo ripple effect ku yeelan karaya noloshiisa quraan akhris salaatu leil yar tukado 2 rakac ama 3 rakac ha noqoto rakacad ha noqoto oo cishaha raaciyo hurdadiisa waqti hore uu seexdo cunadiisa wax yar uu ka bedelo moodkiisa bay bedelaysaa stresskiisa bay qayb ka qaadanaysaa oo ay dejinaysaa marka caadaad yaryar oo qofku samaysto routine yaryar is very important qofku ma noolaan karayo wax weyn ma noqon karayo wax weyn ma qaban karayo haddii aanu caadaadkiisa aanu bedelin mar walba caadad cusub oo hor leh aanu samaysan oo gaarsiinaya oo siinaya ay dhahdo isbedelka u baahan yahay mar labaad waxaan kusoo gabagabeynaya odhanaya laba nooc oo isbedelaa jira isbedel qofka ku dhaca iyo mid uu isagu horseedo isbedel qofka ku dhaca wuxuu ku dhacaa si ogaaliya kan dad qofka uu horseegan wuxuu ku dhacaa ogaal iyo wacyi iyo doorasho iyo go'aan iyo qaraar iyo in aqoontii isbedelkan uu ku sameyn lahaa inuu raadsado labada nooc baa jira waxaan rajeynayaa inaad ka mid noqotaan dadka kooban ee noloshooda isbedelka horseedaya aynan ka mid noqon aynan ka wada mid noqon ay dhacdo dadka isbedelku isaga dhaco sida jirkooda iyo noloshooda ku hareysan bay isku bedelaysa oo isbedelka uu ku socdo in mafaahiimtiisa iyo afkaartiisa iyo tasawuraadkiisa iyo sidoo noloshu arkayana uun waxa uu iska daawanaya iyo meelaha isaga jiray dadka ku hareeraysan uun ayuu sidoo kale ay saameyn ku yeelanayaan ay bedelayaan laakiin isagu noqdo mid isaga isbedelkiisa horseeda inaas muuqaal ku soo gabagabeynaya dabcan muuqaalku uu dheeraaday laakiin waxaan rajeynayaa inaad inuu wax ka faa'iideysaan khayraad fara badan bay rajeynaya inta maan gaajaysan yahay weli waxa la akhriyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.